عليه لو أنني خيرت كل فضيلة هدي لإختيار كليو ولا يقوله اختيار ويلو فضائشة تبقى قادنا صح ما وحد قادنا صح إن مال ما وحد قادنا صح شرفي عنمو ما وحد قادنا صح أخلاق ونكسن ما وحد قادنا صح ما كرنا صح نعمو إلهي سبحانه وتعالى ويسكسيو وحيابهاس أردن تبقى قادنا صح فضائشة دوتك يقانان حكوليه ما اخترت غير محاسن الأخلاق ما اخترت ما دوران لهين غير محاسن الأخلاق وحن أهين أخلاق ذو نقصن ما هاني معناه وحن دوران لها أخلاق ذو نقصن مركنا سيداس أي يدورون جرين دتكي عقلك لها يا قلبك لها وحكو لي هاي إن أياويل كيسا أودا الدارمي نين أياويل كيسا أودا الدارمي وحكو لي هاي مركي نيكيو wiilkiisa uu dardaarmay dardaarunkuna waa inagii soo sheegnay qofku badanaa markuu dhimanayo ayuu ciyaalkiisa u dardaarmaa markaana wuxuu ku yiri yaa bani hadii lagu soo bandhigo suxbata rijaali xaajatan waxdana hadaa ka yeelatid inaa nimanka la saaxiibtid hadii waxdana aa ka yeelatid waxaa la saaxiibtaa man idaa khadamtahu saanak qof haddii aad u khidmayso ku ilaalinaya qof baad u khidmaysay oo hawl baa u soo qabatay hadhowtana wuu ku ilaalinaya maxaa yeelay qofka marka hawl u qabatid oo aad hawshii u dhamaysid ma garanaysaa sidii macnaha karamnimo oo deeqnimo lama sheegayo qofku inuu shaqaysto oo gacantiisa ku shaqaysto taa lama sheegayo macnaha qofka hawl ku yara dirsaday hawshaas oo ma garanaysaa khasab ku wahayn ay isaga doontay ama waa u khidmaysayba intuu ku soo boqday oo yimi qofkaas marka u soo noqotid waa laba mid inuu qofkii ma garanaysaa ku yaso oo ma garanaysaa ku bahdilo iyo inuu ku sareysiyo marka wuxuu ku leeyahay qofkana u soo khidmaysay hadii uu ku ilaaliyo waa saaxiib wanaagsan la saaxiib salahan qof safar la gashay ninba safar la gashay waxa aragtay inuu waxba haysan hantidaadii iyo maalkaagii baa wax ka siisay waxa laga yaabaa intii safarkii lagu soo jiray oo dhan adigii baa ma garanaysaa wax siisiinayay hadhow baa ninkii markuu soo noqday ayaa wuxuu yiri wanikaasu niyo wixiisii baan la cunayo wakaaso waxbuu iska yiri adigu sharaftaadii buu ku ciyaaray oo wuxuu yiri ninkaas wixiisii baan la cunayo waka waa nin doqono wasaas kumu ilaalin sababta qofkii marka u khidmaysay ama waa inuu ku caayo oo sidaa ku dhaho ama waa inuu ku dhaho ninkaas waa nin wanaagsan sidaa ku amoon u dhaho ninkaas si wacan ayuu soo dhaweeyay safarkana si wacan ayuu iskula soo jirnay marka qofku haduu ku ilaalinayo dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada uu ilaalinayo oo ku jeejeysin oo ku yareysanayn qofkaas waa qof wanaagsan macnaha la saaxiib ayuu ku yiri qof wuxuu ku leeyahay ila saaxiibta uu saanak qof hadii aad la saaxiibto ku qorxinaya haday hadal tahay hadal wanaagsan ku sheegaya hadaa ma hanti u baahato ku siinaya hadii ma garanaysaa ay mar gaajo ka qabato kugu celinaya meesha wax ka soo cun lahayd hadii ay wax u baahatid ku fuudeynaya hadii ay dadku ku arkaan ee dadku ku amaanayaan oo ay dhahayaan war hebel buu la socday qofkaas la saaxiib ayuu ku leeyahay laakiin hala saaxiibin mid hadii ay la socotid aanan gaajo iyo hiiliyo saaxiibtinimana ku garanayn dadkuna ay kugu caayayaan ay dhahayaan ma garanaysaa hebel ayuu la socday hadii ay soo qaadatid muuna iyo ma garanaysaa waxyaabo culays ku hadhowtana wixii ka fuudeynaya oo kula qaadaya وإن واصحب من إذا مددت يدك بخبر مدها حكولي هاي وحاقل ولا صاحبتا قف هدي خير اسكو سيديسيد هدي عدو خير اسكو سيديسيد ووح خيرة سميسيد قف إسنا سمينا قف كاس لصاحب خير كيبا ولا سمينا سان وناكي ayaa wada sameynaysan oo in raa minka xasanatan caddaha hadii
shay xasana uu kugu arkana tirinaya waxaasaa samaysay oo qofkii markaa la fadhiisataan oo waxyaalaha khayraad ka sheekaysataan qofkaas waxyaalihii khayrka ah samaysay ayuu ku sheegaya laakiin maaha ma garanaysaa inaad la saaxiibtid buu ku leeyahay qof markaa la fadhiisatid xumaan buu kuu sheegaya xumaantaa samaysay buu kuu sheegaya qof kale oo eheltihiin ama qof aan mas-uul ka tahay xumaan uu sameeyey buu kuu sheegaya wuxuu doonaya inuu sakin diro qof aa saaxiibatihiin xumaantiis buu kuu sheegaya adiga wixii lagugu sameeyey ayuu kuu sheegaya xitaa adiga wixii lagugu sameeyey oo ma garanaysaa oo akhdaa ah oo bini'aadamku kugu sameeyeen ama kuwa ay isaga xasiyeen qiimaha qofkaas inuu kuu sheego qofka saaxiibka ah waxyaabahaas inuu ka qariyo sidaad habi iyo nolol wanaagsan ugu jirtid ayaa la doonayaa ayuu ku leeyahay waa in raa sayi'atan saddexa haddii qofkaas waa inaad la saaxiibtaa ayuu wuxuu leeyahay qofkii kaa arka waxa sayi'a wax xumaana wax dhacdhaca qofka wixii qarinaya qofka la saaxiib ayuu leeyahay oo waxaa la saaxiibtaa wuxuu leeyahay man idaa sa'altahu acdak qof haddii aad wax weydiiso ku siinaya ama makaarim al-akhlaaq oo weliba noocyada ugu wacan sidii ummadii hore ay dhihi jireen ma garanaysaa haddii saaxiibadood ay ku dhihi jireen haddii aad doonaysid inaad wax u baahatid dhulka ku qor oo waxaan diidayaa inaad ma garanaysaa baahidaada afkaaga qaaliga ah aad ugu weydiisatid ama haddii aad wax weydiisatid aad noqotid dadka wax weydiista aad noqotid saaxiibadood sidaas ay ku dhihi jireen markaana qofkaas kale ama saaxiibkaas oo kale waa saaxiib qaaliya wa in sakata haddii aad aamustana kugu bilaabaya markaana akhlaaqda ugu wanaagsan wuxuu ku leeyahay waxaa la saaxiibtaa qof ma garanaysaa haddii aad ka aamusto kugu bilaabaya sababtaa dadku way kala duwan yihiin dadkuna ma garanaysaa baahiyooyinkooda iyo qof kasta wuxuu u baahan yahay wejigiisa ayay ku qoran tahay sababtoo ah qofkan dadku waa dad waaweyn oo way wada fahmayaan marka wuxuu ku leeyahay haddii aad wax u baahato oo weliba wixii aad ka aamusto qofkii kugu bilaabaya ma waxaasaa u baahan tahay ku weydiinaya xaaladaadii oo kula socda qofkaas la saaxiib ayuu ku leeyahay وإن نزلت بك نازلة هذه مصيبة كوسو دكتنا كودا دارميا هذه مصيبة كوسو دكتو لب كوسو دغو وكودا دارميا قفك على صاحب أيو كليه لكن سدباتدي كوسو دكتي على صاحب قف هي دباتدي كوسو دكتي كوسي لبلابيا ama ka qayb qaadanaya dhibaatada inuu kala shaqeeyo iyo xumaatan inuu ka shaqeeyo kuna dhibaya hadhowtana ku dhahaya saaxiibka baanahay qofkaas oo kale hala saaxiibin ayuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay la saaxiib man qulta sadaqa qawlak qof hadii aad wax ku tiraado hadalkaaga dhahaya waa run hadalkaagii buu rumaysanaya oo hadii aad hadal tiraado wuxuu dhahayaa hadalkaagu waa run oo hadii la dhaho inaad doonaysid hadalkaagu waa run hadalkaaga lagu rumeeyo marka hore waa in aad ugu runota waa in aad runta sheegtaa waa in aad runlow weynaaday oo runta ku takhasusay runta aad u sheego waa in aad tahay laakiin qof been lagu yaqaan hadhow aad u dhaw waxan waa beentii waxa weeye waa isaga kasbaday oo wixii awalba lagu yaqaanay ayaa loo sheegay hadii aad shay isku dayadana amark ku amraya ama samee ku dhahaya hami weyn baa leedahay waxaad tiri waxaan doonayaa inaan gaaro saaxiibka marka u sheegtid ku dhahaya waxa samee waxa weeye qofkaas ayaa saaxiib wanaagsan ah kala saaxiib ayuu ku leeyahay oo intana sa'tuma atharak wuxuu ku leeyahay oo kale hadii aad wax isku qabsataan oo wax adduunyo isku qabsataan qofka saaxiibka ee wanaagsan waa qofka wixii ku deynayay qofka la saaxiib shay adduunyo waa isku qabsateen qofka saaxiibka wanaagsan waxa weeye waa qof ku deynaya oo atharak oo ma garanaysaa wuxuu dhahayaa iska qaado waayahay iska qaado ayuu dhahayaa oo iska qaado qofku markuu ku dhahayo macnaha waa inuu si runa oo qalbi furan u dhahayaa maha qofku inuu ku dhaho waxa iska qaado waan ku siiyay hadhowtana ku caadiyo ku ciiri galiyo hadhowtana uu ku dhaho ma garanaysaa sidaas sidaba hadlo laakiin isagoo xanaaqsanayn oo iska caadiya
min baabil iithaar marka ma garanaysaa oo maqaamkiisa la gaadho oo qofkaas uu gaadho inuu qofkan waxaan u daayo oo uga tago waa inuu isbedelkii xanaaqiisa bedelaa uu dhaho waayahay iska qaado adiga leh laakiin hadduu xanaaqi kusoo jiro ama ma garanaysaa uu sii doonayo ama hadallo fara badan oo dee aad ogtahay qofka inuu wixii sii doonayo oo uu dhaho ma garanaysaa dee waxa weeye waa wax iithaarkii maaha dhabtaa iithaarku waxa weeye qofka haddaa wax u daysid waa inaadan kaga daba tegin kaga daba hadlin kuna cidhiidhi gelin ma garanaysaa kuna xaasidin waxa weeye waa inaad si toos ah isaga daysaa